wanaagsan marka la daawadayaal xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa meel mariyay sharciga duulista rayidka waxaana sharcigan uu noqonayaa markii ugu horeysay oo ay Soomaaliya yeelato oo baarlamaankuna uu meel mariyo golayaasha kale ayaa u dhiman iyadoo oo tan iyo markii Soomaaliya ay xornimada qaatay markii ugu horeysay sharcigan la yagleelay sharcigan ayaa lagu dhaqi doonaa dhammaan howlaha la xiriira duulista rayidka waxaa sharcigan uu sugayaa in hay'adaha kale uu maro sida golaha aqalka sare iyo madaxweynahana uu ugu dambeyn saxiixiisa ku soo saaro waxa stuudiga hadda igula sugan wasiirka wasaaradda gaadiidka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar wasiir oo soo dhaweynaya marka hore inta kadib sharcigan ahmiyad inta leeg ayuu Soomaaliya u leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdullaahi aad ayaad salaamantahay waad mahadsantahay intana daawaneysana sidoo kale min dhageysanaysa sharcigan wadanka ahmiyadda uu leeyahay lama soo koobi karo laakiin haddii aan tusaale ahaan ku soo qaato wax kasta oo wanaagsan marka la cabirayo waxa lagu cabiraa Soomaalida anaga Soomaaliya hadaan waxaan ka bilownaa xilligii dawladda adag aan ahayn burburkii ka hor waxaasi meesha uu joogay ma gaarsiin karnaa sharcigan ma uusan jirin hataa xilligaas xilligii aan dawladda xoog leh ahayn ma uusan jirin burburkii ka hor waa markii ugu horeysay aan yeelano sharcigan duulista rayidka waa sharci muhiim ah ma maamuli karaysid hawadaada ma maamuli karaysid wax alla wixii ku saabsan duulimaadka rayidka haddii dastuurkii ugu horeeyay aadan gudbin marka midkan sharcigan haddii aad dhinac ka eegto waa dastuurkii ugu horeeyay waxa hadda inoo haray ansixintiisa marka aan dhameystirno madaxweynaha uu saxiixay kadib waa shuruucdaasi kubi ka hooseeyay xeer hoosaadyada iyo ayaa inoo dhiman laakiin waa runtii waxaan ahayn wadan dhisan haddaad si u fiiriso oo aanan lahayn dastuur oo kale haddii wadankii aan ka soo qaadnay civil aviation kan oo ahaa oo aan dastuur la'aan iska soconay meel cidlo ah aanay haabeynay wax kastoo aan rabnana waxaanu lagu xiri jiray ma haysatiin sharcigeena civil aviation actiga baarlamaanka ma maray marka ahmiyad weyn ayuu wadankeena u leeyahay waxaad ogtahay wasiir in hay'adihii sharcigan lagu dhaqi lahaa qaarkood aanay dhisnayn ama sidii loo baahnaa aanay u shaqaynaynin maxay tahay waxa idinku hortaagan in dhammaan hay'adihii lagu maamuli lahaa sharcigan aad hirgelisaan waxa ugu weyn ee hortaagan wuxuu ahaa waxaan soo dhisaynay meel hoose ayaan wax ka soo bilownay marka aad meel hoose wax ka soo bilowdo oo jaranjarooyin badan ay yihiin soo dhisaankoodii hoose ayaa runtii caqabad nagu ahaa dhinac dhaqaale way jirtay alxamdulillah intii badi waan ka soo gudubnay hadda meeshii ugu wanaagsaneed ayay inoo maraysaa inta inoo hartayna keliya waqti ma ogiye inoo dhiman oo waqti ay nagu qaadan doontaa ma ogiye wax kala caqabad ah oo hadda runtii hortaagan madaha golaha shacabka waad aragtay sida ay noogu ansixiyeen shuruucdii hoosaadkii hoose hataa inaga oon weli ansixinin ayaan sii bilownay inaan sii hagaajino madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha intaba ayagana sidoo kale aad ay inoola shaqeeyaan arrintan ay nala dardargelinayeen marka caqabadaha runtii haddana haysto aad bay u yar yihiin alxamdulillah hadda meel wanaagsan ay wax marayaan maxay ahayd caqabada muddaba sharcigan aan dalka looga hirgelin wadogtooda dawlado badan oo wadanka soo maray wasiirro badanna wasaaraddan way soo mareen dabcan nasiibaad u yeelatay in wasaaraddaadu adigoo oo wasiirka ah wasaaradda gaadiidka aad ku guuleystaan sharci in la meel maray caqabada hortaagneed maxay ahayd aad baa mahadsantahay Cabdullaahi markii ugu horeysay civil aviationka naftiisa ma ahayn meel dhisan oo si sharci hay'ad sharci ku dhisan oo sharcigeedii la meelmariyay ma aynan ahayn sharcigan wuxuu dejiyay midaasi ayuu dejiyay midda kale dhowr jeer ayaa la isku dayay in la marsiiyo baarlamaanka dawladihii hore mar kasta ma uusan dhaafi jirin akhriska koowaad haddii uu soo gaaro ma uusan dhaafi jirin alxamdulillah hadda waxaan helnay dawladda ayaa waxay noqotay stable so 3 sano hadda sii maraynaa qofkii wax ama dhaxda ka bilaabay ama meel ka bilaabay runtii xilli Janice uu ku dhameystiro ayuu yeeshay Janice aan ku fahamno wixii ayaan yeelanay
waxaa kaloo jira sidaa la socotaba mararka qaarkood waxaa dhici karaa in awoodaha naftooda uu tartamo iyo wax ka jiro nasiib wanaag 3 sano ee hadda lasoo dhaafay dhinaca civil aviationka iyo dhinaca gaadiidka dhulka iyo dhammaanteen wax hadda naga dhexeeyey oo dhibaato ah runtii ma jirin taasna wada shaqaynteen oo aad u wanaagsanayd oo hal meel aan ku wajahnayn oo ahayd hawada sideen u soo celinaa sideen shuruucda u dejinaa sideen hay-adda u dhisnaa aan hal weji lahayn ayaa runtii inoo saamaxday waxaad og tahay in maareeyihii dabcan shaqo joojin lagu sameeyey oon weli maareeyo rasmi ah aan loo magacaabin hay-adda duulista marka maxay tahay waxa hortaagan in la helo ama la buuxiyo booskaas booskaasi sida boosas kale oo badan oo dowladda ka jira ayuu ma ogiyo wax waqtigeeda unbaa aan la sameynay insha allah tacaala isagana waa la buuxinaya laakiin wax caqabad ah oo hortaagan in la buuxiyo ma laha dad badan oo aqoon iyo khibrad u leh arrintaasi oo meeshaas qaban kara way joogaan axmed macalin oo hadda hayo booskaas isagana waa nin runtii aad ugu qalma nala soo shaqeeyey waxaan oo dhan nala soo hagaajiyey meel fiicanna nala soo geeyey marka insha allah tacaala dadka khibradda u lahaa ugu fiicnaa shaqadana gacanta ku hayo way joogaan waana la buuxin doonaa booska dowladaha ka raala way garoonkii weli waxaa gacanta ku haya shirkadda Vivori waxaan ugu maqaalaha inaad qorsheynaysaan inaad heshiiskii u kordhisaan mar haddii sharci waddanka uu yeeshay duulista rayidka lagu maamulayo goobaha sharcigaas uu ka duulayo waxay ahaan lahaayeen ama ay tahaba garoonka diyaaradaha iyo dhammaan hay-adaha ee ka shaqeeya aviationka marka sowma habboona in xilligan lagu wareejiyo arrimahan oo dhan iyo maamulkeeda hay-addan oo lama joogo xilligii ay Soomaaliya gacanteeda wax kasta soo geli lahaayeen waa sax Cabdullaahi sharciga hadda sida aan u gudbinay marka la eego garoomadu waxay ka mid noqonayaan waxyaabaha ay maamusho hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed iyadoo oo hay-addu ay maamulayso garoonka oo regulator ay tahay way sharci dejiyay u tahay sharcigana way ku kormeertaa laakiin shaqada operationka ah ee socota way qaban kartaa shirkad kale marka Vivori way qaban kartaa shirkadaas inaga oo si full ah u controlayna oo sharciyadeena ay ku shaqeynayso marka diyaarad kasta oo Soomaaliya soo dulmarto soo gasho inaga ayaa xukumayna oo waa sida caadiga laakiin garoonka regulations bay ku shaqeynayaan Vivori waa operator marka waa kala duwanahay aad baan u kala duwanahay wax yar oo saxitaan Cabdullaahi Dooraaliya shirkadda Vivori heshiiskeeda waa la ansixiyay golaha wasiirada ayuu maray 2013 ayaa waxa lagu siiyay shirkadda Vivori heshiis 15 sano ah dowladeena uma kordhin heshiiskaasi baarlamaanka ayaa soo celiyay inaga wax badan ayaan ka bedelnay kadibna waan ansixinay laakiin waqtigii 15 sano ah anaga hal maalin ugu ma darin waqtigii waa isla 15 sano dhowr sano ayaa u haray hadda ilaa 8 sano ayaa u hartay wax badan oo development ah shaqo badan ayayna airportka ka qabanayaan casriyeyn badan ayaa ku socota hagaajin badan ayaa ku socota marka runtii sida aan heshiiskan cusub ula heshiinay wax waqti kuma aydan darin wax waqti kuma ziyada absolutely way arrinta la xiriirta xagga dhaqaalaha iyo in duulimaadyada Soomaaliya iyo wasaaradduba ay ka mid tahay meelaha ilaha dhaqaalaha ee ugu muhiimsan ee dalka waxaad dhawaan sheegteen in malaayiin dollar aad qorsheynaysaan in ay Soomaaliya ka hesho diyaaradaha hawada isticmaalaya shaqada ma bilaabatay shaqada mar hore way socotay diyaaradaha dulmara hawada Soomaaliya lacag ayaa laga qaadaa kuwa soo degan sidoo kale lacag kale ayaa laga qaadaa marka hawada Soomaaliya ma galaan mise wali waxa lagu ururiyaa marka lacagtaasi waxa qaban jirtay hay-ad kale waxayna siin jirtay hay-ad saddexaad wixii la rabo ayaa loo isticmaali jiray oo shaqo Soomaaliya laga qabanayo laakiin gacanteena ma soo gali jirin bishii June heshiiskii aan soo saxiixnay anaga iyo ICAO iyo IATA aan wada saxiixnay waxay lacagtaasi oo idil ku soo wareejisay dawladda Soomaaliya marka hay-adda lacagta diyaaradaha ka qaado waxay si toos ah ugu soo shubeysaa khasnada dhexe ee dawladda Soomaaliya taas oo keentay in dakhliga dawladda soo galo uu aad u bato
weli marka ma samayseen qiimeyn inta sanadkii ama bishii laga yaaba inay soo gasho Soomaaliya ka soo xarunto hadda qiyaas ahaan waxaa inaga soo galaa ilaa $2 milyan lacag $2 milyan ku dhow bishii ayaa inaga soo gashay marka aan dhameeyno shuruucda hadda aan dejinayno marka aan dhameeyno structuringka aan hadda wadno insha Allah taala arintaasi waxaan filaynaa inay ama laba laabanto ama ka badato haduu Ilaahay ka raali noqdo waxaad ogtahay garoonku in baaxadiisu ay aad u weyneen saxmadda iyo shaqada ka socotaan ay badan tahay iyo diyaaradaha imaanaya ma jira wax qorshe oo lagu ballaarinayo garoonkan si loo helo diyaarado kale oo caalami ah oo garoonkan ka bilaabo duulimaad garoonka zaxmadiisa way badan tahay subaxii oo kale aad bay diyaaradaha busy u yihiin mararka qaarkood hawada ay ku jiraan muddo sababtoo ah hal runway ayuu leeyahay garoonka diyaaradahana aad ayay u tiro badan yihiin waxaa socda hadda heshiiskan aan kula heshiinay February waxaa ka mid ah in diyaaraduhu meel kale oo ay ka baxaan loo sameeyo runwayga naftiisa mid wax cusub in la dhiso kaliya ma aha isaga naftiisa ayaa dayactir weyn u baahan midaasna way ku jirtaa ballaarin weyn way ku jirtaa garoonka dhinaca badda oo la duugayo oo shaqooyinkooda hadda wayba socdaan qaarkood oo waa la bilaabay marka lacag sida hadda aan qiyaasnay ilaa $14 milyan ah ay shirkadda February dib u gelinaysaa airportka waqtigoodii looma kordhin laakiin $15 milyan oo cusub ay dib u gelinaysaa si airportka uu muddo u sii shaqeyn karayo haduu Ilaahay ka raali noqdo muddo dheer Soomaaliya waxay xiriir dhow la leedahay wadanka Turkiga oo ogtahay tababar in ciidamadan ay siiyaan meelihii dhaqaalaha wadanka soo xaroo lahaana iyagu ay maamulaan maadaama Turkigu ay aad uga hormareen dhinaca aviationka ama socdaalka ma isku daydeen weli in aad xiriir sameysaan oo aad mataanaysaan aviationka Soomaaliya iyo kan Turkiga runtii waa fikir fiican fikir aad u wanaagsan aviationka Turkiga waan isla shaqeynaa laakiin marka laga hadlo mataanayn waxa la mataaneyn karaa laba meel isku dhow marka hadda meel isku dhow baa maraynaa xilliga ugu haboonaa ee mataaneyntaas aan ka shaqeyn lahayn hadda ay maraysaa sharcigan marka dhammaan uu maro golayaasha oo madaxweynuhu uu saxiixo maxay tahay tilaabada xigta sharcigani haddii aad doonayso in for example aad qof pilot aad siiso license oo kale license uu ku duuli lahaa oo adduunka oo dhan laga aqoonsado waa inaad sharcigan marsiiso haddii aad doonayso in diyaaradda uu registrationkeeda uu noqdo wadanka Soomaaliya registrationkiisa waa in waxan oo dhan aad samayso marka shuruucdii hoose ayaan hadda mar alla markii ay kaasi dhamaado aan sii dhameystiraynaa iyo si aan u bixin karno laysamadiina laga rabaa arrintii diyaaradii Somali Airline waxaad sheegteen dhowr jeer inaad doonaysaan inaad dib u soo celisaan xagee wax marayaan runtii Cabdullaahi waxaan aad uga xumahay dhowr jeer inaan diyaaradda Somali Airlines way soo noqonaysaa laakiin marna lagama seexan marna lagama fariisan waxyaabaha ahmiyadda inoo leh ay hadda runtii ku jirtaa mar horena ku jirtay laakiin hadda dardar cusub aan gelinay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in si degdeg ah ay ku soo laabato waxaa jira shaqooyin badan oo socdo runtii dib u soo nooleyn shirkad airlines oo muddo hawada ka maqneed waxay qaadataa waqti dheer sharciga naftiisa ee civil aviationka waxyaabaha muhiimka ay u ahayd inay in la sameeyo waxaa ka mid ah Somali Airlines ma soo celin kartid oo registration Soomaaliya ma yeelan kartid haddii aan diyaaradda maanta keeno waxay noqonaysaa in Kenya aan ka register gareyno ama aan ka register gareyno Ethiopia laakiin sharcigan hadda marka uu dhamaaday xilligaas oo aan filayno insha Allah taala inay ku soo hagaagayso xilliga ay Somali Airlines soo noqonayso waxaan lahaan doonaa registrationka Soomaaliya marka arrintaas waa Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista oo barnaamijka dabagalka igala qayb galay ayuu ka siixaa dowladda Soomaaliya ayaa talaalaysa 14 milyan oo neef waxaana laga talaalayaa xanuunka sanbabada wasiirka xanaanada xoolaha ayaa arrintan maanta magaalada Muqdisho kaga dhawaaqay